بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومحسنتهين maanta oo runtii ay taariikhdu tahay bishii shanaad taariikh 5 bishii 10aad 2019 waxaa noo qabsoomay kulan wasaaradda gaashaandhigga ee taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo u qaybsamayaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wadamada saaxiibada aan nahay oo runtii loo wacay taariikh 17 bishii sagaalaad 2019 runtii waa aad bay u mahadsan yihiin in ay soo xaadiraan wuxuuna ahaa kulan runtii aad u muhiimsan maadaama aan ku jirno dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii shaqo badan noo qabsoontay shaqooyinkaasna ay ka mid ahaayeen in sar loo qaado tayada ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan waxayna ahayd kulan runtii aad isku qoraysi ah aan isku wareysanay waxyaabihii noo qabsoomay sanadkan iyo waxyaabaha aan rabnay inaan qabanno iyo wadamada ay joogaan qaabkii iyo wada shaqeyn dhow aan u yeelan lahayn uguna faa'iideysan lahayn fursadaha ee jira waxayna ahayd kulan aad u muhiimsan runtii ay qabsadeen wasaaradda gaashaandhigga ee qaybteeda ee civilian oversight-ka iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wakiiladii military attachiyada ee dalka dibadiisa noogu maqnaa runtii waxayna nala wadaageen warbixino aad u muhiimsan iyo caqabado jira oo loo baahan yahay in wax laga qabto runtii wuxuu ahaana kulan runtii aad u wanaagsan wax badan ayuu ka bedeli karaa waxaan dhihi karnaa waxay joogaan dalalka aan saaxiibadu nahay dhinaca arrimaha ciidamada ayay wakiil noogu yihiin dhanka tababarka waxbay ka bedeli karaan waxaa runtii kulankan wax zaid uu ka bedeli karaa xiriirada sidii lagu xoojin lahaa ama la isugu soo dhaweyn lahaa labada wadan ee dalalka ay joogaan ee dalkeena Soomaaliya waxaan runtii ka faa'iidnay waxyaabo aad u badan waxaa qayb hataa waliba ka ahayd maadaama taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu cusub yahay inay soo galaan oo la fadhiisto ay wareystaan la wareysto ee warbixin ay ugu bixiyaan wadamada ay joogaan runtii wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ugu wanaagsan runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana runtii insha Allah aan rajeyn doonaa inaan si joogtayno kulamada noocan oo kala ay dhacaan si aan ugu faa'iideysano fursadaha meel kasta ay jiraan runtii taas ayaan dhihi karaa qaarkood runtii meel dheer ay ka yimaadeen aadna ugu mahadsan yihiin in wicitaankii aan wacnay ay noogu yimaadeen runtii waxaan is leeyahay waa guul runtii guud ahaan dhammaanteen noo soo wada hooyatay